السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام الدمان أخيار تشرفت له رد في برد دال سجودي سيجار سيل أيام اللي في عيا ملا نبت قبا إلهي إذن كيسو وإذي رجينا عاوة سبتي وناكسن انت يوتيوب كجوكتو انت بروجرام كجوكتو دمانتين سلام سري قولك وصبحان جوكنا قولك سفينتا لشقينتا يا menopauska dib u riixinta soo dhawaada welcome qolalka dhan waa badda meesha ka cabtid waa dhanaana la yiri isku mid waay waxun bay ku kala duwan yihiin dhageysi wanaagsan soo dhawaada welcome isla tacaal sahlan oo saqiran arrinkan waxaa wax looga qaadi karaa ama wax looga fahmi karaa ilaahay idankiisa dabacsanaan dhageysi wax ka fahan isku fiirsasho soo dhawaada welcome tala adaa ku noolaa la yiri tala waatii ilaahay iyada kuguma noolo ila gara sheekada welcome waxaan rabaa inaan la hadlo walaalo badan ee ila soo xiriiro ama reer dabiiba ama si gudbi ii dhageysto su'aalo qabo intii horta wax maqan yihiin way iska imaan kartaa kalsooni darro walwal iyo xataa su'aalo dambi madaxa inoo gelin karo kuwaasoo hadda xaq rabbi wax jiro haddii lagu yiraahdo ka waran ma imaan karaan da'daasaan jiraaye macquul ma tahay inaan ilmo dhali karo oo kale dhasha ilaahay baa bixiyo dhakhtarkuuma sheegi karo inaad dhali kartay in kale anigaan maamuwaano idinkala shaqeeya dhowdhowjinta idiima sheegi karo 100,000 oo adeeg haddaan kusoo hordhigo awood ilaahay bay u sugnaatay inaad ku dhalaysa iyo in kale anigu ma ogaan karo waxaan kuugu soo celcelin karaa hayska daalin hayska quusan ilaahay idankiisa insha Allah isku ducee caafimaadkaaga wax ka baro dabcan adoo dhakhtarka u maraayo indhahaaga ku macallina sidee wax ka yihiin ku xisaabtan da waxba hayska daba dhigan sanadba sanadka kale ka dambe isku tafaxaydo su'aalaha muhiimka ah ha ka dhigin basiit qasaan haduu dhiigu ka maqan yahay haddii aad isku ogeed ciladaha sida PCOS oo kale thyroidka haduu ka qaldan yahay caanaha dad naasaha ku leedahay hormoonaadka qaradii ku dhacsan yihiin ama ku kacsan yihiin ugxaan daciif hadaad isku ogtahay tubooyinka makaanka hadii ku xiran yihiin haddaad maskaxiyan daashay oo nervous noqotay waxyaabo badan oo sabarka dhaqaalaha dabcan dadku ma ogolo inay dhaqaale ka baxaan haddana waxaan kuu muuqan dhaqaale ku bixi wixina ma muuqdaan dhararaa soo galo sooma bal qofka ku sabarsan nafaqo uu lafihiisa u gadanayo haddana u arko caadi wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa oo waxtar leh iyo qofka u arko haddana wax kalaan gadaa haddana ma dhir kalaan gadaa mid kalaan barana saas qofka markuu u arko waxay noqonaysaa qasab waxay noqonaysaa in naftiisii wuxuu u baahan yahay qofka lagu tugtuugo iyo inuu u arko in lagu qasbay in laga dhaadhiciyay orodoo ka tag dhib ma lehe waxba ha cun ha cabin markii la dhahan qofkaas waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo walay hakradayay Soomaali oo dhan waxba ma taqaanooy dad jahliyaan ka dhalanayay wax fiican ka hadlaaba maarag meeshaad aragtaa qofkii ka hadlaaba buuqii dagaal iyo simxad buu rabaa dadka waxa u fiican wax ka hadlaya anigu maarag dadkaana nalugoy adduunkana waad joogtaa waa kanaaye af Chinese bal wax ku fahan oo af Russian wax ku fahan oo af kale wax ku fahan hatta af Hindi wax ku fahan Ethiopian Andriskaaga bal warkooda wax ku fahan marka ilaahay wuxuu kuu sahlan adoon afba wax ku fiirin oo wax ku raadin ba ilaahay jirkaada kula heshiisiin karaa caafimaadkaaga dhigi karaa caawi bariba aad ku curan kartaa wiil gabar mataano nooc walba aad ku heli kartaa caafimaad dhigi dhimirka raaco oo quruxdiisa hanaankiisa wataad ku heli kartaa soo ilaahay barya baadiye dadka joogaba waa dhalaan waa dhaqmaane ilaahay hala baryo haddii insha Allah khayr gabar walba sidii wax rabta Allah u siiyo oo khayra hadday gabar su'aalo muhiim qabto ay tiraado da'daasaan jiraaye ma laga yaabaa inaan ku dhali kara da'da cid kuma dhigi karta haa iyo mayaba waa dadka da'yar baa laga yaabaa
lasay waxaa tiri 45 sano jiraa ma laga yaabaa inaan dhali karo weli dadka qaar waxay dhihi karaan 38 sano lagu soo bursaday inaan menopause galee haddana 45 sano bagaareen miyaan dhali karaa dhowrkii sano la soo dhaafay dhiig bay iguma dhacayna ma laga yaabaa rajadeeda inaan ilmo dhali karo haa iyo may cidna kuma dhihi karto way adoon dadaalno meel soo fadhiyo su'aal un meel la qotamo hadda daryeel la'aan adigu beeraan la abuurin oo la falin oo la waraabin oo la ogaanin miraheeda ma la gurtaa waa may adii adoon far fiiqin ilaahay waa iska kaasii karaa laakiin haddaan su'aalaha qalqallooco idinkaga jawaabo ee fertility-ga quseeyo si guud iyo si gaar arrinaan loo sabrin sabraa sadkiisa helay tiri Soomaali ma ogida sida lagu helayo soo haddaan u soo noqono gabdhaha dhahayo da'daydu intaasay jirtaa menopause gale ugxaanta way iga dhamaatay ama ciladahaasa iga haysto hormoonka iyo menopause iyo adduunya isdaba ordaysay rajadayda uur qaadis ka waran horta uurka kaligaa ma qaadid mar walba ogsoonow nin caafimaad qabo oo shahwaadkiisu nabad qabaan ayaa horta uur loo qaadaa uurkii alla qadaro oo alla qoraana la qaadaa waa la dambaabaa waxa ka rabbi jiro haddii laga quusto iyo haddii la iska dhaadhiciyaba dadka qaar waxay leeyihiin saas haddaan caadada uga qabaystaba uurka waan qaadi jiray maxaa igu dhacay maanaa og wax kugu dhacay maandhaa maanaa og haddaad leedahay waxaa igu dhacayne nasiibku hadduu beri kuu hiiliyo oo ilmo isku nuuga aada dhashay maanta waxaa laga yaabaa ilmihii inaad weli xataa nabad qabto laakiin xilliga ugxaameyntaba aad gaftay waxaa laga yaabaa inuu hormoonku nabad qabo caadayntu nabad qabto laakiin tubooyinka ee wasaqu la taalo adoon isbaarin hubsiina halaa la siistaaye haw ma ku dhihi kartaa beri baan dhaldhali jiray maxaa igu dhacay lama dhihi karo dad waxaa jira maanta haddii la baaro xataa testi walba ku baasay haddana uur qaadista ay ku adagtay haddana hafii balow yiri IVF ka dhacay ee laysku daray shahwaadkii ee ayagoo diyaara lagu shubay haddana ilmihii diideen inay koraan yaa kaaga jawaabi kara taas cidna ilaa ilaahay maahay soo baryada alla waa lagu barakoobaaya ilaahay barya midda kale insha allahu khayr jirkiina barta midda kale sabra maxaa la yidhi sadkiisa helo laakiin haddii la dhaho dad iga waaweynaa dhalaayee maxay ku dhacay gabar ilama taanaha dhalaysee aniga maxay igu dhacay intaas cido kuuma sheegi karto uurkii qabsoomay ee positive pregnancy la arkay baabadana diiday inuu sii koro oo ilmihii la yiri qalaas korrimada way joojiyeen arrinku waa miscarriage haye taasoo ka war yaa ka hadli karo yaa ku siiyey ilaahay yaa oobsaday ilaahay that's it xag rabbi wax jiro horta cido hadday dhex booday kaala hadasho qatarteeday leedahay su'aalaha iska ilaaliyana way ka mid tahay oo haddii kale anaaba dambaabayaba gabar walba waxaan kula taliyaa ilaahay baa wax bixiya ilaahay aamin haddaad isku sabri kartana muddo isku sabar geela gal ee garoorka keen hadduu xaalkaagu yahayne taasu meeshii ka suurtagal tahay allaha si nabada kugu geeyo hubaalsa waxaan kuu sheegaa in jirka dhan lala tacaalo dadka qaarkood fertility-gooda waxaa fadhiisiyey oo muddo dheer fertility-ga ka qaldaayay beerkay suba ku lahaayeen xataa xaajimcooyaal badan ee cararayaal laga waayey ama cararayaal waxtarle laga waayey beer subagay lahaayeen markii lagala tacaalay toxinka jirka iyo beer subagiba baa amarka ilaahay way suurta gashay fertility-gii waxay iska noqotay qabtay cishay ilmihii shalay la dhahay ilaahayoo hal xaba leh ilaahayoo waxaan ku indha nuursan nasii maanta waxay noqotay seen u kala koriyaa inay ka dhacdo soo adi caafimaadkaaga ma taqaanid meeloo yaalo dadka qaarkood hadda ummadaha caadiga markay la macaamilayaan waa iska okay dhexdooda buuqaylo muran khilaafka qoyska isa qabsi eray kala qabtay kala ceshay maalin nabad maalin caro the stress hormone ku kacsanaa quraan saaray u baahnaayeen aamusnaanay u baahnaayeen isku hadiyeynay u baahnaayeen is adeecay u baahnaayeen hadal macaani u baahnaayeen good time u baahnaayeen nabadeyn farxadeyn saaxiibtinimo kalsooni khayraad badanay u baahnaayeen markay caadi iska dhigeen oo ilaahay talada u dhiibteen ee habbi noqdeen ee issaxeen
ilaahay baa dhexdooda ubadkii ka beeray laakiin maxay u baahnaayeen inay il jinni il insi ilaahay ka magan galaan sadaqa reerkooda ula baxaan laba qof oo is adeecsan oo isku baariya oo dharagtana ku faraxsan baahidana ku faraxsan ay noqdaan maxaa lagu itixaamay isfahanka kabacdii barwaaqo heleen kabacdii nafaqo heleen kabacdii taran heleen kabacdii dad iyo dunyaba ilaahay daaha uga qaada marka you never know meeshuu yaalla dabiibkaaga isfahanka qoyska oo xaajigaagu raalli kaa noqdo ilaahay baa leh oo kuu duceeyo ood baari u noqoto laga yaaba inuu hakad u ahaa arrimaha dhanba waalidkoo laga duceystaa sidoo kale way fiican tahay adoo ilaahay baryo oo ilaahay gacmaha u hoorsado saac walbaba waa wax fiican dadka qaar qalliin uma baahno oo burooyin ma laha oo dhiiglaan maaha oo hormoon qalqal maaha oo cillado kale oo aada u sii xag jira maaha xataa da-du ma durugsano marka ha laisdejiyo idinma dhihi karo kheyr allah idin siiyee halkaasuu dabiib ku yaalaa hadda waxaan idiin diyaariyey oon idiin diyaarinayaa waayahaba aan hoos u diyaarinayay blue diamond team la dhaho runta inaa fahantaan waa muhiim saas markaan daryeelka idiin soo hordhigo aqriya articoleka la socdo oo xisha ku leexda as usual 8 sana taqaaneen aqri articoleka linka ku leexo raadi nafaqada cun cab qof walba wuxuu cunuu ciidamiyaaye ilaahayna talada saaro aamiin oo ilaahay talada saarta oo ilaahay aan talada saarana dhammaanteenba marka tiimkan wuxuu insha allah inoo sii iftiimin doonaa wax allaala wixii cilladahon ka cabanayno inaan tartiib u fahno maxaa keenay breshar walbe maxaa keenay soomaaliya waxay tidhahdaa dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka hoos yaallo micnaha nolosha fahan ubixii la waraabiyaho wuu nuuraa sooma ubixii la waraabiyaho ilaahay idankiisa insha allah wuu nuuraa marka waxa kugu dhacay ma naqaano laakiin waxaan raadinaynaa wax waloo kuu roon kelmadda inaa fahmi kartid waa muhiim micnaha nolosha inaa fahmi kartid waa muhiim ilmaha gabadha uun ma dhasho yes ilaahay hadduu kuu gunto adaa umulaysid ilmaha adaa naasahagu caano galayaan laakiin ka wara adoon uur lahayn haddaad naasaha caano ku sidato oo adoon uur lahayn haddii sidii gabar uur aad la laboonayso oo calooshu ay dacro kaa buuxdo adoon uur lahayn oon caado lahayn hadduu jirkaagu signal soo tuurayo inaad uur leedahay oo kale maxaa ku qalday ma biyaha lagaa raacay ma cunadaa lagaa raacay ma caradaa lagaa raacay ma dhafarkaa lagaa raacay xaggey wax ka jiraan raadinaan ku jirnaa marka hashii helo badan ka cabta helo laga gaaray mataqaano laga yaabo koobka qaxwada inana laga gaaray iyo kafiinkiisa sifeyn waa waxaan ku jirna sifeyn haddii sokor la sifeynaa iyo haddii subag la sifeynaa iyo haddii wasaqii dacar iyo toxin la sifeynaa waxalaala wixii la sifeynaaba sifeynaan ku jirnaa ilaahumay negative noqoto waxa la sifeynaa raalli inaad nolosha ku noqotid waa insha allah da-du ha kuu hiilido intaa jirtid adaa taqaanid gabadha kale ay ka da-roon tahay nadiifinay u baahan tahay waayo fiiri gabarna waa 30 sano gabarna waa 40 sano 10 sano oo sifeyna u dhexeyso 10 sano oo da-ah ayaa u dhexeyso xisaabtan adoo 40kii dhaafay balka waran marka waxaan laga rabaa inaad raali noqotaan ka war adigoo da-duna kuu hiilinayn haddaad cagajiid noqoto adoo ka tanasulaaba la qaatay markaa iska sabro iska quusto caafimaadkaada guud uun quruxsato ilaahay talada saarto horay u baxo ma baxaye haddaad tiraahda mitidaan ahayne hadda wax allaala wixii laguu diro inaad adeer waa inaad doonataa oo dantaada lagu cabiray oo fertilitigaaga lagu cabiray insha allah allaha sahla allaha saqra meeshaan meel dhiirigelin waay soo dhawaada welcome markaan idin leeyahay fariiso tasho ilaahayna talada saaro waa sidan fariiso tasho ilaahayna talada saaro dabiibkuna daraf walbuu yaalaa midkii daawada ku jirto ilaahay baa yaqaano insha allahu khayr ilaahay hala aamino
waa inoo iyo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo saaxiibtinimo wanaagsan. fertilityga lagu wareerayna bal saa u fahma, allaha sahlo, allaha saqro, aamiin. soo dhawaada, welcome. maanta waa sabti, waan ilii adeegaya qolka saboodka menopauskan joognaa. sabood wanaagsan iyo saaxiibtinimo wanaagsan, haye relax hala noqdo, dhagtuna haydiin taagnaato, caafimaadna daryeelka allaha ku daro, aamiin.